baarlamaanka Soomaaliya ayaa la go'aamiyay inuu furmo 22 bishan oo ku aadan Sabtida soo socota. nidaamka madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sabab u noqday in baarlamaanku uu furmi waayo xilligii rasmiga ah ee loo qorsheeyay furitaanka kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya. madaxtooyada waxay doorkan maalmood qiimeynaysay ama ay ku mashquulsaneed guuxa xildhibaanada diidan xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse. in furitaanka lagu aadiyay 22 bishan waxay ka dhigan tahay in la shaqeyn doono 6 maalmood kadibna la kala aadi doono fasaxii Ramadaan. taasi oo keeni karta in mooshinka dib u dhac uu ku yimaado maadaama loo heli doonin waqti fiican iyo sidoo kale waqti looga doodo. xildhibaanada mooshinkooda waxay fahansan yihiin midaan, laakiin qaarkood aan la hadalnay waxay leeyihiin waxaaba noo fiican sidan bacdul Ramadaan, markaas oo dhammaan ay madaxdii mucaaradka tagi doonaan magaalada Muqdisho oo mooshinka uu heli doono garab xoogan, geedi fadhi siyaasadeed iyo dhaqaale. si uu mooshinka dhexda ugu dhimanin waa in la geeyaa baarlamaanka Ramadaanka kadib oo lagu aadiyaa marxaladda aan baarlamaanka la xiriiri karin, dowladdan aan cudurdaar u heli karin ay leeyihiin qaar ka mid ah xildhibaanada. ilaa 90 xildhibaan ayay ku dhow yihiin saxiixa mooshinka, waxayna rabaan in la gaarsiiyo 120 xildhibaan sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada saxiixay mooshinka ka dhanka ah xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse. 55 xildhibaan ayaa ku filan in mooshinka la geeyo ra'iisul wasaaraha, waxa uuna ku dhacaa 139 xildhibaan. kaalinta madaxweyne Xasan Sheekh weli ma cadda, waxaase dadka ka agdhow ay sheegayaan in marka hore uu qiimeynayay ilaa xadka xildhibaanada baarlamaanka ee dhabta ka tahay in xukuumadda ay baxdo. taas ayuu ku go'aan qaadan doonaa madaxweynuhu, waa sida ay sheegayaan qaar ka mid ah howlwadeennadiisa. wararka la xiriiray in hadda la sameynayo isku shaandhayn degdeg ah si culayska loogu qaado ra'iisul wasaare Xamse aad uma xooganaa. dhinaca gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur waxaa markii laga soo warinayaa inuu qabto haddii golaha shacabka la keeno mooshin ka dhan ah ra'iisul wasaare Xamse. 8 ka mid ah 20 xildhibaan ee ugu horeysay ee saxiixday mooshinka waxay isku xisbi yihiin ama isku xasaab yihiin ra'iisul wasaare Xamse, waana mid ku fahansiinayso sida ay ra'iisul wasaaraha iyo reerkiisa u kala tageen. furitaanka kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa kaloo macquul ah in ay fowdo ka dhacdo maadaama ay jiri karaan xildhibaanad diidan hadal jeedinta madaxweynaha. ay leeyihiin qaar ka mid ah xubnaha ka soo waramaya wajiga cusub ee laga yaabo in uu la soo bixi doono baarlamaanka Soomaaliya kala fadhiga soo socda. haddaba sidee u aragtaa adiga?